ummad kasta inay tijaabiso isku filaanshiyo waxay liqaysaa iyadoo la soo baxdo kayd yeelata cunneed waa wax bini aadamka meel kasta uu ku nool yahay baa looga baahan yahay inkastoo iminka jaayixadan karoonahee dunida ku soo korodhay ay dhibaato cusub soo kordhisay bolisiga dunida yaala siyaasatul qamx ku saabsan cunnada ku saabsanna waa bolisi isticmaariya oo Kissinger العرابي الأمريكي السياسة الخارجية الأمريكية يهودي جدا شيء أركتدي سواها كم ده هيدا وأركيي دول كشدال كهستية وحكر هذا إنرجي دوني ده قبصة بولاي هاي إن أقول وحنو باهنا هنا قبصنا بولاي عند الدنيا ده يبين هذا كوح ولا قيو سأنو كنترول كرنو فعلا فقيه استراتيجي عبد الله النفيسي marka uu ka waramayo afarta awoodood ay dunida ku maamulaan nimanka maanta dunida uu burtuurka ah maamula waxa weeyaan buu leeyahay kow waa siyaasat al-khamat oo ah waxa lagu tilmaamo ugu weyn khamaadka la sheegay raw materialka oo ugu weyn yahay buu leeyahay shidaalka iyo sareenka labadaas ay gacanta ku hayaan buu leeyahay shidaalka dunida iyaga soo saara iyaga suuq geeya iyaga iib geeya qoladan dhulkooda laga soo saara waxay cunaan baa laga siiya iyaga haysta iyaga leh waxay kale leeyihiin cunada dunida sareenkana iyaga gacanta ku idinku waxba beerina la yiri haday beerana suuqa laga saara annaga idin siirina wixii cuni lahaydeen annaga idin ka iibinayna markaanu doonana annaga ku cuno qabataynayna oo ka joojinayna ilaa intaad baqtiyayso ama aad warkayga u hogaansanaanayso saddex shay oo kale uu tilmaamaya markaas oo hubku ka mid yahay oo majlis al-amni iyo waxaan United Nations ka la sheegaya ka mid tahay oo ka mid yahay maxay الثقافة جامعات كي علمك يا قنطة يا تكنولوجي يا ميديا يا واحد بس عضها اسكو ضوضوب وحين لنا ما أنت الأمن القومي ومدى إلادة هي الأمن الغذائي وقضية استراتيجية وأرن أن كفتن كجلين وأرن أمد ولبين السحر وجن وقفكرته أي تاجنت هاي إن دنيا وحسوسار كذا بيد هذان خيرات كذا طبيعي جيب بني آدم كو صوصار الدنيا يالا بقول كيف سيدته واحد بني آدم كو صوصار بقول كيف الله بعتم بني آدم كم يدعونا أنت كلا والله قاعد سيا بقول كيف الدوري لا 10 مليون 25 مليون وحكا بدننا قاعد شود أنت بيدها سلام راكم واحد هذان خيرات كودن كوليه بقول كيف الشمبا قعنتك وهي وعن فيليا ولبا إحسائيات كان إني قديم يهينه إني هدا كيرطي بقول كيف السقاشن إنك بدننا يعني بقول كيف السقاشن خيرات كودن كالشمبا هيستا marka aynu soo dhaafno ihsaayaadka iyo wararka soo dhan dunida qadiyada cunnadu waa jawic kalbak yatba'uk eegaaga gaajisay bay yiraahdaan ha ku daba galee eegu haduu dhargada iska ka tagaya laakiin hadaad u sido salada wuxuu u jiraan kolbaad wuxuu tuurayso oo ku daba soconaya ha hiya siyaasa raashinka dunida maanta taala waa shucuubta in la gaajaysiiyo si ay u hoggaansanaato gaajadu sideedabana inxiraafaad tiro badan baa ka dhasha qalooc badan bay wadataa oo nabigu muxuu ku tilmaamay kufrigu faqrigu inuu kufri noqdaa buu ku dhow yahay walidalik inxiraafaat bulshada ijtimaaciya ka dhasha bal dawladaha waa loo taliyaa oo kuwa yidhaahda man laa yamlik quuta laa yamlik qaraara qofkan wuxuu cuno isagu haysani go'aankiisa male bay yidhaahdaan go'aanka cidda wax ku siisaa leh waxay tilmaamaan gaajada iyo faqrigu hadduu tiro bato ijraamkaa tiro bata nabaddaa la waayaa tuugadaa badata ammaana xudanaa badata akhlaaq xumadoo dhan baa bata crimekaa bata waxaan oo dhammi waxay la socdaan
waxaa ka mid a waxyaabaha buunbuuniya gaajada bal dadyawga qaarkood waxay ku kalifaanba inxiraaf caqadiya oo gaalkoo waxaystana markuu arkayo muslimkoo gaajo ku madhay dee waxaaba is odhanaya war mala xaggaasaaba saxu jira xaggaasaaba barakadu taallaa iyo dadkii wax lagu haystay mushkiladda gaajadu bay yidhaahdaan ama insaanka sidiisaba bini aadamka mashaakilkiisu bay yidhaahdaan isagaa jaaniya isagaana daxiya waabay yidhaahdaan dhibbane iyo dhibba ka dhibta geysanayaana waa isaga kay dhibtu ku dambaynaysaana waa isla isaga bay tidhaahaan haddaba mashaakilka dunida yaalee cunnada ku saabsani waa mashkila falsafiya ku saabsan qaabka wax loo maamulo ku saabsan qaabka wax loo qaybsado ma aha mashkilad asal ay u tahay mawaaridda oo yar waxay yidhaahdaan baa caalam alcarabi ama caalam alislaami in badanoo ka midana 3 shay ayaaba ugu muhiimsan bay yidhaahdaan nuqsaanta haysata midi waa naqsulintaaj wax soo saar yarida dadkoo iska fadhfadhiyo aan rabin inay wax soo saaraan ka labaadna waxay yidhaahdaan waa inta wixii la soo saarayna faaqidkaa badan inta luntaa badan bay yidhaahdaan oo farsamada ama loo istoodhgareeyo ama loo kaydiyo ama loo ilaaliyo ama baan jirin haddaynu sanadkan tamaandho waddanka ay hargeysa si fiican uga baxdo waa 2 bilood uun inta la cunayaa ee ugu badan wixii ka dambeeya waa in quruntay iyo in la tuuray iyo in qaabka loo soo rarayo markaa iyo qaabka loo istoodhgareeyo waddanka dhammi ma laha meel wax lagu istoodhgareeyo meel cunno lagu istoodhgareeyaba ma lihin waddankoo dhammi meel cunno lagu istoodhgareeyo ma lihin oo saalix u ah bakhaarka un bariiska engegan lagu gura baynu haysanaa idan meel loogu talagalaba cunno bini aadam in lagu istoodhgareeyo ma lihin saa daraaddeed waxay leeyihin wax soo saarkooda 15 ilaa iyo 23 ayaa waxay ku lumaan systemkaasi wax soo saarka waddanku uu sameeyo boqolkiiba 15 ilaa 23 in loo gaadhaya waxay ku lumaan maxay system xumida qaybta labaadna waxay dhahaan waa hidaarka waa dadku siday u daadiyaan wax cunnada la qubo ama tan dusha la iska saaree tirada badan leh cunaan aad u baahnayn haddaad cunto dee waad qubtay dunida waxay yidhaahdaan dad 3 qof ee dunida ku noolba mid baa suu taqdiya haysataa bay yidhaahdaan 3 qof oo kastoo dunida korkiisa maraya mid baa cunno xumo haysataa midkan aynu sheegayna cunno xumadu haysato waa labada daraf bay yidhaahdeen midna way ku yaraatay dabeetana wuu u bukaa midna way ku badatay dabeetana wuu u bukaa labadubana way bukaan waa boqolkiiba 30 bini aadamka dhulka kor saaran bay leeyihiin baa suu taqdiya haysataa suu taqdiya haystaa waa maxay midna waxaan caafimaad qabin ama aan fiicnayn ama buu isku badiyo cunay dabeetana dhiikar iyo kolestarool iyo sokorow iyo dhagax iyo baliya baas baa galay iyo samna baruur oo waxa la yidhi hadhowna boodbood oo lacag kala bixi oo iska rig inta ku saaran midna gaaj ah haysata idan waxa yaallaa bay leeyihiin 3 ugu daran ee caalamka saddexaad aynu ka mid nahay yaalla waa imaa inuu marka horeba wax soo saarku liito dadku aanay wax soo saarayn ama inta ka lumaysa wixii ay soo saareen ay tiro badantay ama inta muhadarka ihdaarka lagu sameeyay la lumiyay ee noocyadka kale aynu sheegayno loo lumiyay ama qaabka loo isticmaalayo aanu ahayn qaab saxa midalan caalamka carbeed bay yidhaahdaan boqolkiiba 60 biyaha isticmaalaan waa muhadar bay leeyihiin waa si aan caadi ahayn baa loo isticmaalay waa si ka yar baa loo isticmaali kari lahaa saa awgeed waxaan leenahay dunida wax la'aani ma taallo mar kastoo aadanuhu uu soo bataba ilaahay cilmi u furay mar bay dunidu dhir shidanaysay inagu weli halkaasaynu taagannahay enerjigeenu inuu weli dhiriyey ummadina ma horu marto horumar ummad kama suurtagal aha 2 shay oo la helo mooyaane biyo iyo nal inay ka dheregto energy ummaddii aan energy haysan horumar kama suurtagal aha weligeen baa inu soo khudbada soo akhrinoo sheekayno waxaynu cabnaynu laanay xaggaynu ka horumarnaa
waxaynu shidanaa ama energy aynu isticmaalana waa la'nay laa gaas walaa laydh walaa waxba toona weli geedkii baynu gubaynaa shidaynaa horumar iyada daa markaa casrulxajari baad nooshay wakhtigii dhagaxa waxay idhaahdaan aadanuhu noloshiisu waxay u tatawurtay tiradu markuu yaraayo koowaad geed buu shidi jiray bay yidhaahdeen ku noolaa kadib buu ka soo gudbay steam buu yimi albukhaar markuu maraakiibta iyo waxa kan iyo steamka lagu kaxayn jiray bukhaarka la isticmaali jiray kadib buu ka soo gudbay wuxuu yimi alfaxmi alxajari dhuxushii la soo qodanayay dhagaxa ahayd dhuxul dhagaxdii la soo qodayay oo dhulka hoostiisa laga soo qodayay kadib buu ka soo gudbay dabeetana shidaal buu la soo baxay kadib buu ka soo gudbay dabeetana gaas buu la soo baxay kadib buu ka soo gudbay dabeetana طاقة صناعية طاقة la abuuro buu samaystay sida nuclear energy iyo chemical energy waxyaabaha kan kadib buu ka soo gudbay dabeetana wuxuu yimi طاقada aan nuduubku ku dhicin tan cadceedda iyo dabaysha iyo badda karansigeeda iyo laga dhaliyo kuwaasi ma go'aan de cadceeddu markay dhammaato dee dunida dhammaanaysa idan dunidu waxay leeyihiin mar kasta oo aadanuhu soo bataba ilaahay futuux cilmiyo cusub buu furayay taasina waxay sababaysay inay noloshoodu kor u socoto tiro badnidu inaanay nolosha dib u yaraynin inay ahaato mar kasta tiro badnidu wax fiicnaysiinaya dunida oo ay nolosha kor u socoto laakiin inagu de weli waxaynu taaganay maxay alcasri nabaati xataa casri alxajari maynan soo gaadhin casrigii nabaadka geedka la shidayey مشكلة الغذاء ومشكلة تاريخية وهنا لقى يابا إني كم تهاي وحيابي دقالة بدر الدنيا ده كدعي دقالة دقالة هاي أما الصراع الطبقية احتكار كان عالمي عنا ده اللي قصة ميني استعمار كي الدنيا ده قميستي وحبضني إلهي القرآن كوحنا لي وفي السماء رزقكم وما توعدون إلهي وابلغ هذا يرزاق ده ضمان الرزق قرآن يا حديث توحينات المامة من الله إلا قبل قاضي لكن معناه يدو ماها تواكل معناه يدو ماها اسكفر فريست أرساق دو ويمان إسايه ما لا يكون قرنتي ما جرتو هذا اللي يدي اسكفر فري أرساق ده هلا يساني ما لا يكون قرنتي ما جرتو يوحى اللي ينيري من أحيا أرضا ميتة فهي له دول دنتي قفك النولية وحكا بيرا وحكا صوصارة innaguna intaynu bannaanadii ilaahay oo dhan weegaaranay ayaynu xataa neefkii daaqaya u diidnay waxna kama soo saarno sharciyan maad mulkinin weligaaba dayr ku wareejiyo dhe anigaas kale waxba dayr naf loo macno samaynayo mashaakilka yaallaa markaa wuxuu yahay waxa uu qur-aanku inoo tilmaamayaa فسادinta la fasahaadiyo ama dhirta ama xoolaha ama nolosha ama waxa kani ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو لد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد أهلا نوح نبي نوت المامية لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة قفك مسلم كاي وحما بيره جيد متاغو أما الزرع مردولك كمرده وابن آدم معونه أما حولبا معنان أما عدؤون معنتبو نبي قوليه إلا هي صدقات بيوتي